Musuqmaasuqa waa wax ugu badan ee dowladaha iyo shucuubta dhiga gunta hoose ee nolosha fasaadka iyo kuwa suubiya. Qur'aanka ayaa lagu sheegay marar badan haddii ay ahaan lahayd fasaadka diinta, haddii ay ahaan lahayd fasaadka akhlaaqda, iyo haddii ay ahaan lahaydba fasaadka nafta. Waxa ugu horeeyay ee malaa'igtu tiri markii Allah subxaanahu wa tacaala oo u sheegay inuu abuurayo bani aadam khaliif ugu noqda dhulka ayaa waxay ahayd قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. فيديوغana maanta waxaan kula wadaagi doonaa tobanka dowladood ee ugu musuqa iyo fasaadka badan. Waana hubaal in magacyada dowladaha qaar aad ku arki doonto aad la yaabi doonto. Haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe dheh, haddii aad ka mid tahay asxaabtii hore noogu xirneedna fadlan like saar si oo muuqaalka u gaaro asxaab badan. Tobanaad waxaa ku jirta Democratic Republic of Congo. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waxay ka mid tahay dowladaha dhaca bartamaha qaaradda Afrika. Waa dowladda labaad ee ugu dhulka weyn Afrika. Waa dowladda 11aad ee ugu dhulka ballaaran adduunka oo dhan. Waa dowladda ugu badan ee ku hadasha Faransiiska ama luqadda Faransiiska marka la fiiriyo tirada bulshada ee reer Congo. Congo waxa ay ku jirtaa booska 10aad dowladaha ugu musuqmaasuqa badan adduunka, iyadoo ay jirto in dowladdan ay leedahay kheyraad badan oo aynan lahayn dowlado badan oo dhaca qaaradda Yurub. Hase ahaatee damaca iyo baahiyaha bani aadamka marna ma dhamaadaan. Congo waxa ay leedahay kheyraad aad u tiro badan sida luulka iyo macdan naadir ah oo la yiraahdo coltan. Waxay sidoo kale leedahay kaydka labaad ee ugu badan nuxaasta adduunka, taas oo lagu qadaro 10%, taas oo la macno ah balaayiin dollar. Halka ay ku dhici lahayd qasnada iyo kaydka dowladda waxa ay ku dhacdaa jawaabka musuqlayaasha ama dadka musuqmaasuqa sameeya. Musuqa iyo boobka hantida Congo ee sababay burburka iyo dib u dhaca dalkaas dadkii ku lugta lahaa uguna muuqa dheeraa waxaa ka mid ahaa Mobutu Sese Seko oo ka arrimayay dalka Zaire muddadii u dhaxaysay 1965 ilaa 1997. Dabcan Zaire waa magacii hore ee Congo. Halka musuqa iyo isdabamarintu ay ahayd kuwa dhex socda qulqulka dhiigga madaxweynahan ama dhiiggiisa ayaa wuxuu ku shaqeynayay inuu wax musuqo ama wax uu isdabamariyo. Wuxuu ahaa mid u booba ama u lunsada hantida waddankaas qaab mashruuc ahaan. Wuxuu soo dejin jiray sharciyo ka saacidaya inuu sameeyo hanti lunsasho. Mashaariicdiisana waxa uu ka qayb gelin jiray ama wax uu gacanta u gelin jiray qoyskiisa, dadka isaga xiga iyo intii u dhadhowba. Booska 9aad waxaa ku jirta North Korea, Kuuriyada Waqooyi. Waa dowlad ka dhan ah faahfaahin. Waa dowladdaas uu ka taliyo keligii taliyahaas adag ee Kim Jong. Inkastoo Korea ay tahay dowlad dhanka militariga aad uga adag, ahna dowlad haybad leh marka la fiiriyo caalamka sababa la xiriira hogaamiyaheeda maylka adag ee Kim Jong, kaas oo aan dhab ahaantii la qiyaasi karin habdhaqanadiisa. Haddana waxaa lagu tiriyaa dowladda ugu badan ee shucuubtooda dhiban yihiin dhanka nolosha. Run ahaantii waxaadna ka garan kartaa farqiga weyn oo u dhexeeya iyaga iyo dariskooda Kuuriyada Koonfureed marka la isbarbar dhigo. Nolosha adag ee qalafsan ee ka jirta dalkaas ayaa muwaadiniin badan waxay ku qasabtay inay isaga baxsadaan dalkaas iyagoo maciinbidaya dowladaha dariska ah, khaasatan Kuuriyada Koonfureed. sanad walba dadka isaga cararaya Korea waxaa ka mid ah askar. December 2017 askari lagu magacaabo Oh Jong Song oo dhowr iyo 20 jir ahaa ayaa go'aansaday inuu isku dayo mid ka mid ah isku dayadii noloshiisa ugu qatarsaneed uguna halista badneed, isagoo go'aansaday inuu isaga haro ciidanka una cararo dhanka iyo Kuuriyada Koonfureed. Isagoo kadib markuu baxsaday ka waramay waxa ka dhaca iyo xaaladda ka jirta ciidanka dalkaas, ayuu ka waramay laaluushka iyo musuqa ba'an ee ka jira ciidanka dhexdiisa, taas oo ay dheer tahay rafaad iyo gaajo inta lagu guda jiro howlgalka caskareed. Dadka isaga soo baxsaday jaxiimada Kuuriyada Waqooyi ee maciinbiday dariskooda Kuuriyada Koonfureed sanadii tagtay ayaa waxay gaarayaan 229 qof, sida ay soo bandhigtay wasaaradda mideynta Kuuriyada Koonfureed, taas oo dib u dejin u sameeyay dadka isaga soo cararay jaxiimada ka jirta Kuuriyada Waqooyi. Markii uu dhamaaday dagaalkii u dhexeeyay labada Kuuriyo sanadii 1953 ilaa haatan, dadka reer Waqooyi Kuuriya ee u baxsaday dariskooda Kuuriyada Koonfureed waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 31,000 oo qofood oo isugu jiray nooc walba oo bulshadu leedahay: caruur, haween, ciroole, macallin, siyaasi, askar, dhaqaatiir. Dhammaan waxaa laga wada cararay jaxiimada ka jirta Kuuriya. Booska 8aad waxaa ku jirta Liibiya, dowladdii bedroolka ee musuqa iyo isdabamarintu ay la jiraan dhulka welina ay sii burburinayaan. Dadka qaar ayaa aaminsan in lunsashada iyo musuqmaasuqa Liibiya uu bilowday wixii ka dambeeyay mudaaharaadyadii iyo dhicitaankii Muammar al-Qadaafi. Laakiin maaha sidaas ee fasaadka iyo musuqa waxa ay soo jireen sanado fara badan. Ee keliya arrinka ayaa ah in dagaalada sokeeye ee ka bilowday dalkaas ay sii laba jibaareen heerka musuqmaasuqa iyo fasaadka ka jiray dalkaas.
waxaase la yaab ah in haddii aad taariikhda dib u raacdo aad helaydo in musuqa iyo boobka ay si ba'an usii siyaadaan waqtiyada dagaalada, khaasatan dagaalada sokeeye. bal ka waran dad gurigooda degan oo isqoonsan oo dhexdooda loolamaya, qayle iyo buuq guriga dhexdiisa ka taagan tahay, wasakh meel walba taalo, warqado kor loo firdhinayo. dhab ahaantii haddii aad qaylido cidna kuma maqlaydo, haddii aad wax haddana cidna kuma ogaanaydo, sababtoo ah dadka dhan waxay ku wada mashquulsan yihiin keliya dagaalkaas olola. musuqa iyo boobka hantida ummadda, loolanka lunsiga hantida guud ama hantida qaranka waxa uu ahaan mid sii socda sida ka dhacday dalka Liibiya. laga yaabay dadka qaar inay is yiraahdaan Mucamar haddii uu noolaan lahaa way fiicnaan lahayd, sax in badan way dhaami lahayd xaaladda hadda jirta, laakiin musuqa waa uu jiri lahaa. Liibiya waxa ay leedahay oo ay hodan ku tahay kheyraad bad ah, yacni kheyraad aad u tiro badan oo aan la soo koobi karin, kheyraad nafto, kheyraad gaas, kheyraad tiro badan oo macaadin ah, taas oo ka dhigayda muwaadinka Liibiyaanka ah in uu ku noolaado nolol ka raaxa badan nolosha uu ku nool yahay muwaadinka u dhashay dalka Switzerland, muwaadinka u dhashay Denmark, muwaadinka u dhashay Sweden, muwaadinka u dhashay Spain iyo muwaadinka u dhashay Holland. Haddaba muwaadinka Liibiyaanka ah ma ku noolaa noloshaas quruxda badan? Jawaabta adigaan ku dayn. Liibiya musuqaas iyo fasaadkaas dartood hadda waxaa lagu tiriyaa ama waxa ay ku jirtaa booska 8aad dowladaha ugu musuqa badan adduunka. booska 7aad waxaa ku jirta Equatorial Guinea, waa dowlad yar oo dhacda bartamaha Afrika. waxaa horey u gumaysay Spain, waxaana lagu tiriyaa inay ka mid tahay dowladaha ugu bedka yar Afrika. Guinea hadda waxaa xukuma Teodoro Obiang Nguema, kaas oo xukunka dalkaas la wareegay 1979 kadib afgembi military oo dhiig ku daatay, sababayna dhibaatooyin fara badan. Sida caadada u ahna saraakiisha afgembiyada military markay la wareegaan waxay sifeeyaan qof walba oo mucaarad ah iyo qof walba oo door muuqda ku lahaa xukunkii la afgembiyey si ay goobta ugu banaanaato ayna ugu kaliyoobaan saaxada isagana dhuuqaan hantida dalkaas. sidaas darteed madaxweynihii xukunka lagala wareegay ee Francisco eedeymo badan loo soo jeediyey kadib wuxuu masiirku noqday in lagu xukumo dil toogasho lana toogto 29 September 1979. waqtigii uu bilaabay maamulka dalkaas ilaa haatan waxa uu marba marka ka dambeeyo hoos u sii dhaco dalkaas ilaa maanta Guinea ay ku jirto kaalinta 7aad dowladaha ugu musuqmaasuqa badan adduunka, iyadoo ay jirto in ay tahay dowlad hodan ku ah petroolka si la mid ah sida Liibiya iyo Congo. sidoo kale gaas iyo petrol kaliya maaha ee waxa uu heliyay macaadin qiimo badan sida dahabka, diamondka iyo titaniumta, laakiin natiijo ka dhalatay musuqmaasuqa qarqiyay Guinea ayaa keentay in dadka dalkaas ay ku noolaadaan faqri meeshii ugu xumayd. dhismaha Guinea waxaad moodaa dhismayaashii quruntii dhexe oo kale, halka wadooyinka dalkaas aanan lahayn tuubooyinka biyaha qaada, daadkuna uu iska dhex qulqulo iskana dhex fadhiyaan biyaha bartamaha wadooyinka caasimadda dalkaas. biyo nadiif oo la cabo way ku yar yihiin, koronto fiican ma jirto. sidoo kale Guinea waxaa lagu sheegaa inay tahay dowladda ugu hooseyda ee talaasha dadkeeda ama dowladda ugu hooseyda ee dadkeedu talaalku ka qaataan cudurrada. haddii waxaas oo sifa ah aad ka hesho dowlad, waxaad ogaataa in ay jirto laba midkood, in ay tahay dowlad ay ragaadiyeen dagaalo sokeeye ama waxay bartanka kaga jirtaa aafada musuqmaasuqa. haddaba arrintan waxay keensatay in la dabagalo dadkii wax ka xukumayay dalkaas iyagoo lagu tuhumayo musuqmaasuq iyo boob hanti qaran. Oktoobar 2017 garsoorka France ayaa ka xukumay 3 sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed 30 milyan oo euro ah Teodoro Obiang oo ahaa madaxweyne ku-xigeenka Guinea ahna wiilka madaxweynaha, kaas oo hanti waali ah ku shubtay bangiyo ku yaala Yurub iyo dalka France, taas oo ahayd hanti qaran oo laga musuqmaasuqay dalkaas Guinea.